kuna horkeenay waliba marqaatiyaalka iyo dadkooda adlays iyo gabdhihii ciidamada ay kufsadeen adaa mas'uulka ah ciidanka wixii saleeyo ciidankaaga wuxuu haleeyay adaa mas'uulka gabdhihii kufsadeen wixii oo dhan dadkii soo tarxiishay deegaankooda aad ka soo tarxiishay wixii oo dhan waa yeelaan kiiskooda maxkamadda u yeela kaale ka garbax waa hadii nin caqiide leh aad tahay qof garbixi kara handaad tahay kaale garbax dawladda federaalka waxba waa cagjugleyn dawladda federaalka uma baahno inay ay muxuu ahay adiga kula mudacdo inay adiga muxuu ahay wixii aad tiraahdo ay wax ka dhahaan uma baahno arintaas dawladda federaalka maandayday leedahay waxay wadataa jadwal ay wadataa oo goboladaas inay muxuu ahay ku badbaadisay ay rabto golaha badbaadada ee hadda la dhisay muxuu ahay jubbooyinka dawladda federaalka waa la shaqeynaysaa muxuu ahay qof kasta oo doonaya in muxuu ahay inay badbaado Jubbaland rabana waa la shaqeynaya anaga xildhibaanada federaalka hadaan nahay waxaan diyaar u nahay cid kasta oo dadkaas badbaadinaysa inaan la shaqeyno Ahmed waxaan ku leeyahay dadkaada ku soo noqo far dheeraad ha noqonin maalin walba idaacad ha taagnaan Kenyaati waxba kuma qaban karaan Kenya waxba kuma qaban karaan ciidankooda wadanka waa laga saaraya baarlamaanka Soomaaliya inuu soo fadhiisto ciidankooda mooshinkii looga saar lahayd waa qorin haday diidaan oo ay ku sii adkaystaan muxuu ahay diidmadooda mushaarka laga gooy ama Soomaaliyeedkeeda laga xayoobin dal xoog lagu haystay noqonayeen Soomaaliya iyaga waxay kala helaanayeen ay muxuu ahay ay kala helaayeen Soomaalina waa taqaan ala ka dhashay Axmedow dagaal loogama adkaado dagaal Soomaaliya waa ku adkaataa loogama adkaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta uu dhaafi maayo walaalkay saaxiibkay waxa aan leeyahay oo kaliya Soomaalida waxay tiraahdaa dibi doolal dad baa iska leh Axmed dad baa xigto waa gacantiisa ay leeyihiin ha qabtaano ha ku soo xiraano muxuu ahay ummadda Soomaaliyeed ha ku soo xiraano Soomaalinimadii uu ka tago hooya dalkii uu gacan geliyo hooya shisheeye Axmed gacantiisa cidii leh ha badbaadiso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh